maanta waxaa inooga sheekayn doonaa aabbahan waayeelka ah kaasoo ifka ku waayay xaaskiisu aadka u jeclaa. hooyaday waxay dhahday sideed u aragtaa inaad guursid gabadhan? waan ka diiday, waxaan dhahay ma doonayo, waa gabar madow. kadib hooyaday way ila talisay. waxay ahayd gabar 8 sano jirto. markii aan garabkeeda qabtana daciif ayay ahayd oo caato saa'id ah ayay ahayd. kadib waan ka soo horjeestay oo waxaan dhahay ma guursanayo, iga hor leexiya gabadhan. kadib gabadhii way weynaatay oo waxay gaartay 18 sano. anigana waxaan noqday wiil 24 sano jir ah. hooyaday weli waxay rabtay in ii guurso gabadhan. anigana waan diiday oo waxaan dhahay gabadhan madowga ma doonayo inaan guursado. hooyana sidii camal ayay igu dhahday wiilkaygiiyo caqli isku yeel oo guurso. sanadku markuu ahaa 1958 bishii Juun 13 waxaan u istaagay salaad istiqaara si aan Ilaahay ugala xaajoodo mowduucan guurka ah. kadib waxaan riyadii ku arkay aniga iyo gabadhi oo faraka ciyaarayna. iyadu waxay isku dayaysay inay iga baxsato laakiin ma awoodo. markii aan indhaha kala qaadayna waxaan arkay inaan sariirta saaranahay. 3 maalin kadib markaan arkay riyadaas, aabbahay iyo hooyaday iyo walaalkay iga weyn waxaan u waday gabadhi reerkeeda si aan ula kulanno. iyaguna guurkeena way ogolaadeen. iyada markaan la kulmo waxaan weydiiyey, hadda ka hor sawiriyada iguma aadan arkin? waxay dhahdaa haa, 15 maalmood oo u dambeeya oo idil riyada ayaan kugu arkayay aniga iyo adiga oo faraka ciyaarayna. waxaan isku dayay inaan baxsado laakiin ma awoodi karin. markii aan indhaha kala qaadana waxaan arkay anigoo sariirta saaran. waxaan mar dambe ogaaday inay iyadu la nuuc ahayd ubaxa fiyoolaha ah oo aan inta badan la arkin. waayo indhahaygu waxay caadaysteen inay daawadaan ubaxyada gaduudka iyo cagaarka kuwaasoo hareerahayga ka muuqda, laakiin iyadu nuuca may ahayn. waxay la nuuc ahayd ubaxa fiyoolka kaasoo inta badan aanan la arkin. sanado iyo bilooyin badan ayaan soo marnay. ilaahay wuxuuna siiyey hanti iyo awlaad. nolosheennu waxay ku dhisnay reereen iyo farxad. ilaa ay xanuunsatay qadiijadaydii bishii Nofeembar 2006 waxaa helay xanuun beerka kaga dhacay kaasoo ay aad ula dhibaatootay. si loo soo daaweeyey Ankara ayaan u waday, laakiin dhakhaatiirta cudurkeeda daawo way u waayeen. 11 maalin kadibna Ilaahay ayaa naga jeclaaday oo way dhimatay. waxaan noqday qof ay haleeshay waali. runtii markii ay geeriyootay xaaskayga oo ay dunidan igu cidlaysay waxa i asiibay waali. miyay iibinayaan qadarka aan lacag siisane? aniga ayaa lay qoray inaan ku noolaado meel cidla ah. aniga iyo xaaskayga guurkeena wuxuu Ilaahay qoray inta aynan dunidan imaan, laakiin qadarka ayaa ku soo koobay 51 sano keliya. xilligeenu ma uusan ahayn guga ee wuxuu ahaa dayrta. qadiijadaydu waxay ahayd gabar midabkeedu madow yahay. waxay ahayd mid soo jiidasho leh. dunidanna way igu cidlaysay. waxaa dunidan la keenay 2 qadiijo keliya, mid
midda koowaad waa xaaskii nabiga sallallahu calayhi wasallam, midda labaadna waa xaaskayga khadiija, allah u wada naxariiste. sidaas oo dhan ayay u wanaagsaneed. waxaan si wada jira u wada nooleen 18,598 maalmood. hal maalin oo ka midana hadal xun ima aysan oran. waxay ii dhashay 7 carruur ah, hal mid ka mida ayaana inaga saqiiray. adduunyadan 7 carruur ayay ka dhashay, mid ka mid ah ayaa ka saqiiray, 6 kalena tarbiya ayay soo siisay ilaa ay ka noqdaan geesiyaal. geerideedii kadib wax kale ma samayn jirin. buuraha ayaan wareegi jiray, buurba buur ayay ii dhiibi jirtay anigoo ayada raadinaya. qofna ma oga qiimaha ay xaasasku leeyihiin. ilaahow u naxariiso kuwa ilaalsada ee sharfa xaasaskooda. ilaahow khadiijadayda janno ku abaalmari. khadiijoy adna kaalay oo halkan iga kaxayso. kama baxdid xiskayga ilaa aan jiifta mooye. waxaan si niyada oo dhab ah u leeyahay, wacnaan lahaydaa inay noolaato. waxaan noqon lahaa addoon ee iyada leedahay. waxay ii adeegaysay 50 sano iyadoo aan hal mar xitaa daalin. waxay yeeshay awlaad wanaagsan, qaybtan allah siiya kuwaas wanaagsan ii daryeela. anigu geerida kama boqo, waayo gurigan ayaa layga wadayaa, guri kale ayaana laygeynayaa. haddaba saaxiibada qiimaha badan oo tan waa qiso dhaba oo sawir ka bixinaysa sida uu yahay jacaylka daacadda ah. waxaa jira dad madmadow geliya, marmarsiyana ka dhigta inuu la xawgiyaa waxaan jirin, kadib markay kasoo dhalaali waayaan mas-uuliyadda ilaalinta tiirarka caashaqa oo ay ka mid yihiin daryeel, qadarin,